الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله سيدنا محمد وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعاد إلهي أيامها وحن كسرنا بيدو وحن جوب لدورشوينكي أو العيمة وددبنا كسي بقول إيه 7 أيام وترتمين ترتمين أنا كقيب كل أيام نمت هسي شحوة عقبض iyo culays yar ayaa naga hor yimaadeen markii aan guud ahaan uga hadlana maxaa yiraahdaa arrimaha meeshan ka socdo ee baydhabo anigu shakhsiyan qiyaasta aan qiyaasi waxay tahay meeshan ma fidsana gogol nin gob ah oo wax ka soo doontay oday meeshan ma taalo waa socda meesha arrimo oo takrifal caadi ah oo aan wax daafur yani qawaaniinta noo degsan oo dastuurka soo dhigay waxa weeye in la qabto doorasho hufan xor iyo xalaal ah in la qabto ayaa qorneed taas laga soo minguuriyay oo shuruucda loo ansixiyay doorasho dad badan kaas laga soo minguuriyay in la qabto doorasho xalaal ah hufan loo baahnaa hadda wax meeshan hufan iyo xalaal ah iska dhaafay waxa weeye si marta oo daah furan waxa loo sameeyaa gabood falo caadi ah oo lagu talax tagay xuquuqda oo yani muwaadinka xaqiisa siyaasiga ah oo in la doorto inuu wax doorto waa laga hor yimid xaqiisa siyaasiga ah inuu wax doorto waa laga hor yimid wax meeshan nidaam dawladeed la yiraahdo oo yaala ama xaq oo wax lagu qiimeeyo uma jeedo raxmad allah siiyo Soomaaliya allah u raxmado dhammaan Soomaaliya waxa xadiisadan lagu socdo waxaan ka baqayaa dawladnimada inay intii yareedan soo kasbanay inay faraha ka baxdo ayaa suurtagal ah saadaradeed waxaan Allah subhanahu wa ta'ala ka rajaynayaa in tawfiiq u nawaafajiyo inta harsanna marta ilaahay uu nawaafajiyo laakiin meeshatan uma jeedo sidii lagu talagalay warqadaha ku qoran oo la rabo in loo fuliyo doorashooyinka uma jeedo wax dhan waxay ku jiraan control aad zaid ah oo gacan qof ku jirta weeyaan qof aan raali laga ahayn meeshaas ma gudbaayo maba noqonayo musharax sida hadda ila tahay anigu had kursi waa ka soo tagay baydhabo haddaan ka duulaya haddii aan la yiraahdo mar dhow waxaa wada hadal u socda kursiga aniga iska mid yahay anigu waxaan ahay musharax oo kursigaas 103 u tartamayaan ahaa waxaa hadda wada hadal u socda oo wixii ka soo baxa aan sugaynaa go'aankooda madaxtooyada ee gobolka Koonfur Galbeed iyo odayaashii iska lahaa beesha odayaasheeda oo iska lahaa kursiga 103 inay ka xaajoodaan go'aanna ka gaaraan ayaan ka sugaynaa wixii ka soo baxa ayaan sugaynaa haddii aan yiraahdo laakiin aniga ilaa hadda rasmi ahaan waxaan ahay musharax rasmi ah oo kursigaas 103 u sharaxan sugayana in la qabto doorasho xalaal ah xor ah oo daahfuran in la qabto ayaan diyaar u ahay ilaa taas laga gaarayana sidaas u soo taagnahay xaqaasi waxa kursigaasi bixin kara ama diidi kara waa beesha iska leh sida uu shuruucda ay ku qoran tahay gacantoodii gacan ilaahayna kama badna iyagana ka warsugaya ahlan wa sahlan wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh